وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأخيار وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaynu ku soo dhex jirnay khulafadii afarta ahaaba in taariikhdoodii soo dhammaynay. waxay culimmadu raaciyaan xagga cadaaladda imaamkii cumar ibn cabdilcasiis la odhan jiray oo isaguna sanadii 9 hijrada ayaa uu qabtay hogaaminta muslimiinta. kontomeeyo sano ama nus qarni meelahaasuu ka dambeeyey khulafadii, laakiin khadkoodii buu isku taagay intii jidku yaro qalloocsamay kadib ee xoogaa dulmi madaxda qaarkood in badan oo kamida uu ka yimi. sidaa daraaddeed ayaa cadaaladda iyo hogaaminta ummadda, siyaasadeeda, cilmigeeda mujadidkii casrigaasuu ahaabaa la ydha. cumar taariikhdiisa hore iyo halka uu ku dhashay waynu soo xusnay. madiina lagu tilmaamay inuu ku dhashay, laakiin sida raajixa waa xulwaan, masar inuu ku dhashay. waktiga khilaafada iyo hogaaminta loo dhiibay wuxuu ahaa hijradu markii ay maraysay 9. imaamkaasi waxa uu hayay 2 sano iyo 5 bilood, 6 biloodna lagu sheeg, 30 bilood ama 29 bilood u dhigmaysay, laakiin muddo aada u dheer. khadka uu ku socdayna waxa uu ahaa khadkii cumar ibn khataab oo awowgii hooye ah. taariikhdu waxay sheegaysaa cumar waktiyada kamida isaga oo kormeeraya waa cumar ibn khataab ummadda islaamka iyo duruufaha haysta. habkay madaxdaa hore u kormeeri jireenna waxay ahayd iyadoo aanay cidba u diranin inay iyagu waktiyo lama filaan ummadda dhex maraan, iyadoon cid aanay isu sheegaynin si ay u ogaadaan xaqiiqada dhabta ah. waayo dadka wararka keena marar badan baanay xaqiiqada ka turjumin oo waxa la jecel yahay inay soo wariyaan. wuxuu maqlay sidaa marar badan ku maqasheen ruux dumar ahoo hooyadeed la hadlaysa oo kule hooyo caanaha kordhi oo xoogaa biyaa ku dar si ay noogu bataan. dee amiirulmu'miniinka cumar waa mamnuucee ka daaway, inama maqlaya cumaree kordhi baanu ku nidhi bay tidhi caanaha. haddaanu cumar ina maqlayn ilaahay baa ina maqlaya bay farabbu cumar yaraana wa yasmacuna. cumar waa calaamadsaday gurigii, subaxdiina cid buu u diray, inantii baadidoon baa lagu soo helay, inankiisiibuu u guuriyey. dadkii ka farcamay markaa cumar hooyadii baa ka mid ah. silsilada qaaligaa buu gelayaa. cumar raximahullah waxa u dardaarmay khilaafada iyo hogaaminta ninkii igu horeeyay sulaymaan la odhanayay, laakiin isagu waa ka soo taagnaa waktigaa isaga mas-uuliyadda culayskeeda aada buu uga baqanayay. waxa uu dareemayay inaan isaga wax culaysa mooyaane wax kale ugu jiro, dhibun inuu ugu jiro ummadda danteeda haata, laakiin culayska ay leedahay buu aada u dareemayay. mashaaikhdii, culimadii aclaamta ahaa, ahlulxalli waalcaqd waa la isugu tegay sidii loo ogolaysiin lahaa. mimbarkanaa la saaray, waabu hadliba kari waayeba, bal khudbad jeedi baa la yidhi intoo lagu riixayo wuu hadli kari waaye. kadibna waa laga soo dejiyey bal si uu u nastoo mar dambe uu soo dhaqdhaqaaqi karo. cumar allaha ka ilaahay raximahullah markii uu isu taagay mar dambe inuu bal xilkan dadka ka aqbalo oo mimbarka uu fuulay, waxa uu ku dhawaaqay kelmado kooban oo qaaliya oo ay ka muuqato shucuuru lmas-uuliya, mas-uuliyadda weyn runtii uu dareemayo. waxa uu leeyahay faxamid allaha waathnaa calayh, intuu ilaahay ku mahadnaq u ammaanay kadib wuxuu leeyahay ayuha annaas inahu laa kitaaba bacda alqur'aan walaa nabiya bacda muxamedin sala allahu calayhi wasalam. wardadiyo qur-aankii qur-aan kama dambaynin, nebigiina nebi kama dambaynin. macnaheedu waxa weeye waxaan raacayaa waa qur-aanka, ciddaan ku dayanayaana waa rasuulku sala allahu calayhi wasalam. manhajkiisa uu ku soconayo
iyo nidaamku raacayo ummadda u sheegaya alaa wainii lastu bifaaridin walaakinii munafi wa sharci dejiye ma ihi anigu doorka fulintaan u taagna sharcigii ilaahay wuu yaalaa fuliyaan ahay anigu ee musharici ma ihi sharci dejiye ma ihi taa aynu isku ogaano walastu bimubtadicin walaakinii mutabic mid wax iska dhambalanaya maaho diin cusub keenaya ma ihiye hadyigii iyo sunnadii horaan raacayaan ku taagna walastu bikhayrin min axadikum walaakinii asqalukum ximla mid idinka mid ah un baan ka mid ahay midna kama khayr badni ummadeyna waan se idinku culusahay maanta waxaa la isaaray waa dhib iyo culays idinkama se fadli badni waina arajula alhaariba min alimaami aalimi laysa biaalim waxaan idiin sheegayaa mas-uulka daalimka ah qofka caasiye ee ka firdhadaa daalim maaha ila daalim baa helay alaa laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waxaan idiin sheegayaa ilaahay iyadoo la caasiyayo cid kale lama adeecayo ha igu adeecina weeye wax macsiye ah waxay igu adeeci kartaan un wax diin iyo daaco ah markii cumar ibnu khadaab uu lahaa iyo abubakar iyo ayuu isna ka daba maray allaha ka raali noqdee wuxuu isku dayay si siiradii iyo dhaqankii khulafadii hore uu u maro salim ibnu cabdillaahi ibnu cumar ibn khadaab cumar ibnu khadaab inankaa awowga u yahay buu u yeedhay waraaq buu u qoray waxa uu leeyahy bal hadigii cumar iyo xukumadiisii iyo gaar ahaan maalka ummadda siduu u qaybin jiray bal hadda iisoo qor taasaan kaaga marti ahaya sidaa daraaddeed buu saalimna nin fariida buu ahaayo usoo qoray oo usoo diyaariyey lifaaq buu raaciyey uu leeyahay inaka in camilta bimithli camali cumara fii zamanihi wa rijaalihi fii mithli zamanika wa rijaalika kunta cinda allahi khayra min cumara war waxaan kuu sheegayaa casrigan aynu taaganna haddaad camalkii cumar qabato adoon waktigiisii haynin raggiisiina haynin dee cumar adaaba ka khayr badan cumar casrigiisiina ma joogto raggiisiina ma haysi haddana haddii aada shaqadiisii qabato diyaar u tahay maanta inaad raadkii cumar raacdo cumar adaaba ilaahay agtiisa ka khayr badanaya wuxuu dareemayey ummadda islaamku siday cadaaladda ugu baahanta sifooyin badan oo tobaneeya aynu marka dambe kala soo bixi doono insha allahu ayaa markaa aynu tirin lahaynoo uu lahaa cumar isagoo kaga dayanaya khulafadii hore isagoo qur-aanka iyo sunnada isku dayay inuu ku camal falo dad badani ha kula yaabsanaadaan naftiisana haba ku adkaado waa arrin aynu kaga dayanayna haddaynu nahay mas-uuliyiinta kaalin walu qofka ku jirada ka qabiilada madaxda u ah ka sheeka ah ka madarasada iyo dugsiga ummaddu ku urursan tahay madaxda u ah ka sharkada madaxda u ah ka dawladda madax u ah mid waliba waa tusaale nool buu u yahay taariikhdani waxaa nusuusta ay sheegaysaa wax la fulin karo inuu yahay ee aan waaqica fulineed ku adkaanaynin ayaa aynu ka arkaynaa markaa taariikhda wuxuu isugu yeedhay nimankii reer bani marwan ee dadku faraha ay ku fiiqayeene maamulka yaro marooriyey ama ka faa'iidaysan jiray isaguna wuu kasoo jeedo dee waa cumar ibnu cabdilcaziiz ibnu marwan buu ku abtirsanayaa markaa wuu isugu yeedhay kadibna waxau ihi ugu horeyn waxaan idiin sheegayaa xoolihii aniga isoo galay intii aanan madaxtinimada qaban si aan toos ahayna igu soo galay ayaan shubayaa oo baanka islaamka ku shubaya dabeedna beeruu lahaayoo weyneyd oo ummaddu ay wada lahayd oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waktigiisii uu dee waqaf ka dhigo oo danta guud ahayd ayuu ihi anigu taa waan bixiyey beryo hore oo meesha barasaadiya uu ka ahaa ayaa show lagu qoray isagii ehelkiisa taa waan soo celiyey buuhi waxa labaada uu ka qaaday dadkii ehelka ahaa ee madaxdii isaga ay isku dhawaayeen wixii ay siiyeen ee uu arkayay inuu dheeraad ku yahayna dhammaan wuu ka wada qaado wuxuu ihi baytulmaalka dhiga xaaskiisii buu u yeedhay oo halkii madaxda ninkii ay ku aftirsanaysay baa xidid la ahaa cabdulmalik ibnu marwan xaaskiisii oo faadima la odhan jiray buu u yeedhay oo wuxuu yihi laba mid waxaad haysataa buu jawhar aada u fara badan dahab iyo dheeman iyo lulu waxaad u fara badan baad haysataa oo aabba iyo ehelkii aada ka dhaxashay waxana waa wixii ummadda lagugu soo ururiyey inaad keligaa intaa qaadato garumaad lahayn anigii alaabtaada faraha badanina aqalkan ma wada joogi karayno ama alaabtaasaad dooranaysa ama anigaad i dooranaysaa faadimo arrinka waan soo ururinaya kolkay aragtay inay ka dhab tahay waa xalaal miirashadiisii baynu ka hadlayna
oo aan ka dheeldheelahayn ayaa waxay tiri me alaabtan doorto sidaa daraaddeed ayaa banka lagu shubay ninkii ka dambeeyey markii uu qabsaday buu iyadii u yeedhayo wuxuu yidhi dee odaygaagu berigii wuu ku dulmiyey anaa kuu soo celin doono dahabkii iyo alaabtii maya waktigii ninkii aan jeclaa waktigii wixii aan iska dhigay lagama yaabo ti inaan ku noqdo waxay sheegaysaa cadaaladiisa iyo xalaal mirashadiisa nimanka cumaalka ah ama had iyo jeer madaxda gobolada oo qaarkood ay ku yara luga fidsan jireen maalka iyo isticmaalkiisa nin ka mid a baa waraaq soo qorayoo waxa uu leeyahay waxa magaaladii way yara duugowday dib u habayn bay u baahantay marka waxaan kuu sheegi lahaa haddaad ogolaato inaad adduun noo baaskarayso magaalada lagu hagaajiyo waxa uu leeyahay qoraalkaagii niyo waan akhriyay buu ugu jawaabay qoraalkaagii akhriye waxaan ku odhan lahaa kugu jawaabayaa faxasinha bilcadl wanaqi turuqaha min adulm fainahu maramatuha wasalaam magaalada waxaad ku hagaajisaa cadaalad jidkeedana dulmiga un ka safee markaasay iska dhalaali doontaa inkastaba meeshu ha qurux badnaato leydhkeed iyo laamideedu haddii dulmi iyo cadaalad darra ay ka jirto way madowdahay buu leeyahy marka waxaan kuu sheegi lahaa dulmigana ka nadiif jidadka cadaaladana ku iftiimi way iska dhalaaliye wasalaamu intaas ugu soo gaabiyey cumar waxyaabuhu ka xalaal miiran jire waxaa ka mid ah waxa ummadda maalka qura muhayna waktiga wuxuu isku dayi jiray shaqada maalintaa u taalla inaanu ka habsaamin maalintii oo dhan buu shaqaynayay habeenkiina wuu ku daray saqdii dhexe marka uu marayaabaa dadkii ehelkiisa ay ka naxeen waxay yidhahdeen malaha waxa fiicnayd shaqadan inaad iska yaro dib dhigto berrita aada qabato wuxuu ihi tii maantaan la il daranahaye bal ka waran tii berritana hadday ku darmato waa xusnu lidaara maamul wanaagay ka mid iyo siduu waktigiisa u qorshayn jiray macnaha waktigu waxa uu ka mid yahay wuxuu ummadda ka iibsaday waa waktiga aynu ku xadgudubno ee dadku aanu moodayninba in la iska xisaabinayo ama uu yahay waxyaabaha cadaaladda u baahan qof kastoo mas-uuliyad haya mid caamiya mid khaasaba waktigu ha ogaado inuu lacagtu la mid yahay iyo maalka ilaa wuxuu maalkan ku helayba ama uu dhaafsadayba waa waktiga wey cadaaladdu way sii badatay ilaa ay ka markhaati fureen saddex aimada ka midi barakadii cadaaladda daraaddeed dadka iska daayo inay duunyadii iyo bahalku istaayeen xasan ulqasaab baa waxa uu leeyahay ra-aytu di'aaba tarca maca alqanam bilbaadiyati fi khilaafati cumar bni cabdilcaziiz faqaala subxaana allahi di'bun fii ganamin laa yaduruha faqaala araaci idaa saluxa ara'su falaysa cala aljasadi ba's way iska heshiiyeen bu uhi bahalkii iyo adhigii nin baa ayaaba wuxuu ihi siday bahal iyo adhi u heshiin war waxaanu ku leenahay bu uhi markay dhakadu wanaagsanaato jidhkuna u caafimaadaa madaxun baa laga xanuunsadaaye markuu madaxu dadka u caafimaado jidhka inta kalena way caafimaada dee dadki iyo bahalki iyo xooluhuna wuxuunay ka mid yihin kuwa caafimaadaya lidaalik baa waktigii dambe waxyaabaha ay dadkii durugsanaa ku ogaadeen waxaa ka mid ah bahalkiibaa xoolihii cunay kolkaasay yidhaha war malaa ninkii caadilkaabaa dhintay ilaan telefooniya xaba ma jirin kolkaasaa la ogaaday waktigaasi inay ku beegnayd waktigu cumar geeriyooday waa la odhan karaa waa barakada walow istaqaamuu calaa ariiqati laasqaynaahu maan gadaq walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min asamaai walard barakooyinka ilaahay uu dadka u furayay ka midta quluubta dadkana waa la hanuuninaya quluubta xayawaankana waa la hanuuninaya marka ilaahay laga tala qaato subxaanahu watacaala nin baa weydiiyey weli xalaal miirashadiisii baynu ka warramaynaa nin baa weydiiyey inankiisana waxaa la odhan jiray cabdilcaziiz waxa uu ku yihi aabbaha intii aan madaxda laga dhigin mushaharkiisu intuu ahaa sanadkii 40 kun buu ahaa ila madaxda waa uu ku jiray markii madaxda uu noqday uu dhintayna waqti uu geeriyoodayna intuu mushaharkiisii ka dhigay waanu ogeyn inuu hoos u sii waday waxa uu 400 diinaar boqolkiiba 10 buu soo reebay intii kale sidii uu sii jaray maalintii 2 diinaar 2 ginima isaga iyo ehelkiisu ay ku noolaayeen sidaa daraadeed baa wuxuu maalin la hadlay nin shaqaalihiisa ka mid ah waxa uu waxaan jecelahay in xajki tago waxna ma hayo maxay kula tahay wax soo baarbaa ninkii baa wax soo raadiyo xoogaa buu soo helay wuxuu yiri mee kan iga daa xooli umadu ka mid yahay kan ka xajimaaye iga daa sidii baa waqti dambe
وحل وجوسها لي مدة دير نفسه إذا آد بوحي سين يسابوا لها حج لكن وحى أن تتجي لها بايقوا عرض عمر عدالة دي سوي بطني وإن قاصو هراي نوصو حسن سويها الكيسي حاس كيسي ولا رقمي مالين هبين هذا كم إذا يسقوا عبادة بدنا مصليه سيها كل عبادة سنة حاس كيسي وحيرك يضع المبضن ولاي هاي وقر كيسي كم وقنيسة وحيث أمير المؤمنين أن شيء حدث ببلا يعتمد وتلوهي هذه أي بضتين وحول المايا أرنك ومضة أيام مرحلة يقلق أسودها وأحمرها بالعادية مد مدوبة ومضى فرها بضن بوحيد يدوش الله يقصار فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباهه في أقطار الأرض marka waxa maskaxdayda ku soo dhacaya dadka kala duwan duruufaysan aanu talinay mid faqiir oo gaajaysan mid mariil oo ciiraya mid qaawan oo dhibaataysan mid madluuma mid kale oo qariib oo isaguna la haysta mid odayaho weyn mid ciyaal badan loo baahan waxa maskaxdayda soo maraya sidaan u kala diri lahaa u kala hagaajin lahaa waxaan ogahay facalimtu anna rabbi sa'ili anhum yawm alqiyamah fakhashitu alla tasquta li hujjatun fabakayt waxaan ogahay inuu ilaahay weydiin doono waxa soo faraaraha loo fara badan oo wada baahan dabadna waxaan ka baqday inaan istifaaci kari waayo oo markaasaan hayn kari waayo ilmada shucuur al-mas'uuliyya way ku soo noqnoqonayeen laba arrimood oo waxyaabaha ugu hawl badan baa ahaan Umar dadkii ehelkiisa ahaa madaxtinimada ku soo aftirsanayay kontonka sano ee ka horeeyay oo aad u soo ciriiriyo u cabanay way ku soo urureen maalmaha kamida reer bani marwan iyagoo waxaan nahay dadkii qaraabada ahaa xooliina waa ka qatanna mushaharkaanu qaadan jirna waa xirmay aad buu ula hadlay waxa uu leeyahay ما أنتم وأقسى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء ذلك المسلمين تكحق قدام بيت شوبة هي إذنكم أنا جوا إيتمنت هكود علينا وحكة وحلا يدكسيني يا مجر أرنت كلام على كويس وحا هي تذكر مركي وقالين إن أنا حنين إيه الكيسة ويجا كحنيو على شدوا لي بعض نول يبكي أي سواء جنب يسجبوا صعودا إلا وحلا وقالين وطلابك قاضيو ويجا آل تركينيو عدالتي سوحة كملها مركة وقف دباتجيس صدح لما الموضة وهرية عقاب كيسة وما بحجرين وحورين ترى أنت عرض الشبيس استع عدالة قف كان لو إيجي كريو بل صدح إشاء إنه كارين إلا هديك لا انتقام بين قنيس أرجوس بين قنيس مركة قف كاس وحكيسته هديك كل كيف الله يسلالة تلابك قارة وحلا جاي على إن لو حد بدبر مركز صدق الشاب لا إنه كارين أي أورنج إمام كاسي حلال ميرشدي سأد بوبضني من ملاحظة قبل هذا كم إذا بانم بصادري تليفون ما تشرين هذا وراقة لسوق رجلا ملاحظة عد بيصادرين شري أنا أمير المؤمنين كله صادرين إيه كي بقولي وقابله حفيز كي ومضوا قابله آد بالا يصور يستور بحين عامض وكقاضي مركي وربحين تيو لما يقول بالعدو حالها خاص كعمر وأريج إيه أهل كاجا إيه عاصمات كاجا إيه وحبرشدي إيه ولا حكور شامعي هرب بختي آد كوي فتيمي ميد دمبوش لا يرى استدعيف يمكن ماشي مريء دمبال ولا هذا وكوي وما تكي هراي نودي كي هرا بس ونايسن ماشي مدو جاي نوجا فتيمي ما يكي هرانا أمضى على هيدي أنتي دنتا أمضى إيه ورك كذا أي نهين بين شيرين إما كان أرهن كي خاص كيا هذا على قلاه شمع الله هاي بشيرة يابو ودنت جود أنت أهايسو أيوب الأجب كدنت جودنا استعمال كراي هدي جاري كيسهاي هدي أي تهاي جريه هدي أي تهاي وحي كلام لهاي الاستعمالية هنتظر أمضة أنت أمضة قعنت وحقوها يسون بدوالي كراي دي كلوين الجريه هذا إسكعليسو جاري كود إسكعليسو وقت قدناها جار كاكش قيسانيس وأصلا نظام كقالض السمايان وقت قدنت جود وكتيران بجاري فيه تليفونات استعمال كراقف هدي كلام وحلا أركي يقف قدنا يستي ورنتي دقن كي ونكسناي ضد المسلمين تاع الهايون وقت يلا كم يدنين يساحيبهم بالصفاح آد ونكسن سهدين ويستقبه هنا ويرى آد بوجود جون هذي كتب هذا ندي بويا قالوا نكي سديبا وحكولو حتكتر على كا أقبل له
laakiin dib ula noqo waanu ka aqbalnay hadiyadda waa kaa guddoonnay iskase hayso allaha ka abaalmariye nin meesha joogay baa la hadla wuxuu yihi hadda nebiguba calayhi salaatu wasalaam isagaa ummadda u madax hadiyadda wuu aqbali jiray maxaad adigu hadiyadda u diidaysa waxa uu yihi ina alhadiyata kanat lilnabiyi hadiya wa hiya lana alyawma rishwa waar nebiga hadiyadda loo hadiyeeya hadiyad bay u ahayd annaga laakiin laaluush bay nagu noqonaysa oo nebiga lama mid yihiin calayhi salaatu wasalaam ee waanu ka duwannahay bu ninkaasi afku xunay xishoo weeye oo maalinta uu yimaado si un baan ugu soo yaro leexanayaa buu leeyahay dadka mas-uuliyadda haya ama inta faraha badan fadhiga looga kaco ama dadku ay uga yar badbadiyaan tawaaducoodu ma bato ama kibirkaa iskaga bata ciduu ilaahay ilaaliyo mooyaane dadka maalqabeenka iyo mas-uuliyadaha iyo haya cumar waxyaabuhu caanka ku ahaa waxaa kamid a tawaaduca inuu aada isu dhuldhigo shaksiyadiisii caadiga ahayd inaanu ka durkin sidaa daraaddeed ba khaliifatullaahi marka la idhaahdo wuxuu odhan jiray yaa cumarow dheh aniga waxay i dhaantay inaad cumarow i tidhaahdo arrimaha kale alqaabta aada sheegayso iga daabuha habeen rajaa ibnu xaywa oo raggii ka warin jiray xadiidka ka mid ahaa ayaa wuxuu leeyahay habeenada kamid a isagoo shaqaynaya ayaan la soo jeeday fayruuskii baa naga xumaaday ninkii shaqaalahana meel halkeena buu yaro khuurinaya kadibna waxaan arkay inuu la rafaadsanyo camalkii u wadi kari laayo waxaan ku uhi ninkan shaqaalaha ah toos haynoo hagaajiye maya iska hurda buu laha iska hurda haddaba adigu amiirulmu'miniinkii baa tay anaa bahalka hagaajine iyar sufbaani wuxuu igu yihi gobonimadu ma aha martida in la dirto adigu martibaa tay iska fadhi wuu kacay kaastiibuu doondoonay bahalkiibuu soo gaasiyey wixiibuu dhag isku siiyey dabeedna si uu cashar igu dhigaabaa wuxuu leeyahy qumtu wa ana cumar ibna cabdilcaziiz warajactu wa ana cumar ibna cabdilcaziiz kolkii hore waxaan kacay anigoo cumar ah imikana wuxuunan soo noqday anigoo cumar ah waxna igamay dhicin waxna igamay kordhin shaqada wanaagunbaa ku kordha wanaagunbaa ku kordhay tawaaduciisay ka mid ahay muuqaalkiisu waxa uu ahaa dadka caadigaabuu iskaga dhex jiray weliba kuwa aan bilicda iyo dhalaalka dharkooda aanu ka muuqanin sidaa ay muujinayso qisadii gabadhii reer ciraaq gabadh reer ciraaqa baa usoo qasaday cumar hablo badan bay leedahay way duruufaysan tahay way u timid isagii ummadda u madaxo gurigiisii bay timid xaaskiisii bay sidaa ula hadasho waxay tidna alaabtii guriga maxaa ku dhacay gurigii aan islahaa alaabaad ka heshid ayaaba sidan abays oo aan waxba oolin kuwiinaa lagu camiray bay kaayaga wixii lagu camiri lahaa guryihiinaa lagu camiray cumar idinku wax idin siiya annaga nama siiyo iyadoo halkaa la marayo cumar soo galay guriga meel halkeera buu ceel halkeera ayuu ka yaro dhaansanaya wayse biyo ah dhowr jeer buu soo eegay isagoo la show islaantan la fadhida xaaskaaga maxay ahayd iyaduna nin kaley mooday ama kii beerwalaha ama mid meesha ka shaqaynaya ayay gabadhii qariibka ahayd mooday marka xaaskii siday ku tidhi ninkaas dhowr jeer buu kusoo eegay waxaa habboon ninkaa yaro qariibka ah meesha maraya inaad iska asturto uu kusoo yaro eegeegayahay waa amiirulmu'miniinkaad u socotay bay macnaa araggii siday ka arki weyday muuqaal iyo haybad dhalaalaya ninkii meesha qodayay bay moodaysa ka shaqaynaya waa tawaaduciisay ka mid ahay sidaa daraaddeed baa imaamka makxuul la odhan jiray wuxuu leeyahay law xalaftu la sadaqtu maa ra'aytu azhada walaa aqwafa lilahi min cumar ibni cabdilcaziiz khawfkiisa markuu ka warramayay haddaan ku dhaarta buu ihi ninka ugu zaahidsan ugu cabsi badan inuu cumar ahaa been ma sheegaya run baa sheegayaa bu lidalik baa marka geerida iyo laga sheekeeyo jidhkiisu si caadiya ayuu u qabandhacyoon jiray oo la arkayo o la moodayo sidii xumadi ahay hays oo kale fuqahada iyo culimada aclaamta ah zuhaadda ah cibaadada caamka ku ah ayuu caadaysan jiray inuu habeenada qaarkood inta badan u yeedho dabeetana u idhaahdo aakhire iyo geerida iyo qiyaamaha iyo jinaasada iyo mawdka iyo aynu ka sheekaysano kolkaasa dabeetana oohinta la isu jiibin jiro halka dadku qosolka iyo damaashaadka iyo xafladaha badiyaan caalamkaasuu ku jiray raximahullah waktiyada kamida buu noo khudbeeyey buu leeyahay cubaydullah dabeedna wuxuu leeyahay ayuha annaas aslixuu asraarakum taslux calaaniyatu war gudaha hagaajiya dushu way iska hagaagi waxaa ogaataan aakhiradiina u camal fala adduunyada ilaahay baa idinkaga filaan adduunyada ilaahay baa idinkaga filaan idin wareerisee aakhire unu camal falaba waa ninkii hogaaminta ummadda haye madaxda u ahaa dadka wanaagsan iyo aqoon-yahanka iyo asxaabta
intuu soo gaaray waqtigii asxaabtu gabaabsi ahaayeen baahan le markii u dambeeyay boqolkiibu dhintay wuu jeclaa asxaabta iyo ehelkooda Usaama ibn Zayd inantiisii baa u timi waa saxaabigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu jeclaa inantiisii baa u timi halkii uu fadhiyay buu uga kacayo markaasuu fadhiisiyay horteedu dabeetana soo kala loorsaday isagoo la asxaabiga inantiisii baa ay timi ikraam iyo maamuusna ay ka tahay wixii ay markaa u baahnaydna waa siiyay Umar bijaalistiisa waxyaabuhu dadka ku waani jiray waxa kamid ahaa in laga yareeyo waxyaabaha qalbiga qalajiya ee uu badan yahay kaftanka inaga yareeyo buu ahaa oo quraanka aan faalayn oo xadiiska faalayn haddayna inta faalaynayna waxyaabaha xikmadda iyo sharxooda aan faalayn waxa la yiraahdaa kaftanku waqtiga uu lumiyaa naxliya nacabshiyana dadku ku abuuraaye jalsadu bilaa kaftan ha ahaatay oran jiray Umar wuxuu caadeysan jiray intii aanu madaxda noqonba wuxuu dadka madaxdii ka horeysay kula dadaali jiray inuu kelmadda xaq ah ku yiraahdo xataa hadii ay xukumayaan ninkii ka horeeyay Suleymaan la oran jiray dad doora buu ka laayay khawaarij uu ka waaniyay wuxuu war nimanka qulubtooda qabo halayn ee waani nin khawaarijti kamid ah buu markaa u yeeray Suleymaan Umarna wuu yeeray bal Umar uu dhageystay buu waa kuwaniga waaninaysay kiibuu war hadal kiina wuu ku hurgufay wuxuu yaa faasiq ibn al-faasiq in kada ninkii madaxda uu kala tirinaya uu leeyahay faasiq ibn al-faasiq baad gaasuu maxaad oran lahayd markaasaad oran lahayd dee wuu ku caayay laakiin hadili orod ka tagura waa kii dila khaarajiyay isaguna dirqibu ku baxsaday isaguna markaa wuxuu jeclaa sidaa uu dadka cadaaladda ugu sheegayo waqtiga uu raciyada ahaa ama madaxdii ahaa hoose in isagana cadaaladda loo sheego ayaa uu jeclaa lidalik baa dadka had iyo jeer umaradiisa iyo madaxda gobolada uu kula dadaali jiray inuu kelmadda xaqa u sheego nin baa waraaq soo qoraya Umar la oran jiray al-Jarrah ibn Abdullah Khurasan meeshan la yiraahdo waqooyi bari buu madax ka ahaa gobolada Jamhuuriyadda Ruushka iyo xagga ila Iran xaggaas waxa uu leeyahay meeshii aan madaxda ka ahaa dadkii way qalacsameen adaabtoodina way xumaatay wa innahu la yuslihum illa as-sayf was-sawt inaan seef iyo sawr una dhaca mooyaan ma toosayaan markii waraaqdii ay soo gaadhay isaguna dib ugu celiyo wuxuu leeyahay been baad sheegtay bal yuslihuhum al-'adl wal-haqq fa absid dhalika fihim was-salam وسيف يصوتك مهرون يوم هجاتيه عدالة دي حق صار كهجات يقولوا كاكوباه سيدا سيكو توسي دونانه ميت كلا وراق موسى قرآن مدينة مدح لكاها هاي وحوليه يعني ماشي وين مدونات مدح دي كاه الرئيسين تشيك ويفتي من شرين وحلوه باهيها إن تشيك الله يستيبيه سيدا نمر كرنها بينك وراق بكل عليه وحوليه وحنا قاعدي وهذين كي يقول عكاس كسر له ما يمكن يفتين وباهته مركز ومضى مدح النقطي بيت مالك وباهه وحاجة شيء يسيه sidii aad madowga ugu mari jirtay halkaaga ugu marbo Umar ummadda waxyaabuhu la jeclaa waxa kamid ah cilmiga sharciga ah iyo diinta inay bartaan ummadda markii horeysay baahin uu sameeyay wuxuu yiri wadadii hawl cilmiga ka soo saara guryaha iyo madrasadaha fagaarayaasha keena iyo shaarica iyo masaajidada iyo goobaha ummaddu ay isugu timaado si dadku cilmigooda ay u qaataan iyo waxiga samaawiga حكمتي سيدة كمدة هاي وحورن سيدة تعلموا العلم فإنه زين للغني وعون للفقير وإنه يدعو إلى القناعة والعلم يقول ولما علمك الشرعي الديني هاي قفك قنية قروح بويه كفقير كان نقالويه قفك قناعة وكردية علمك هلا برتبورن نينكي وقوف فربضنا مشهر قردتك علمتها أيها وكمدها ميضا قلادة يمي الديدم عدالة دي ساتوحي كانتو إلهي كو أبا المريء ولقوا يقال سيدي أصحابتي هربا إنه مستجاب الدعوة أيها وها وحيابا لقى أركي إن غيلان لأوران شريبا قدرية وكم إذا هايو كوي قدر كديبي شريب وكوانيا وحول قدر كه يسكا وقلوب وان طوبت كينا يبود وكي يرشكي توبت دي سوي حول حتى كارب تهينا الله كا أقبله هديك لنا إلى هاي أفر تأدين بها كوكو يبود تيبو قلنا نقضانيكي لأوران شريب هشام بن عبد الملك أيها أفر تأدين بها كتشري سونا دلتلي markii wixii ka hari waayay qadardiidkii iyo halowgii sunnayaal wanaagsan buu jireeyay oo madaxdii hore uu kaga duwan yahay waxa kamid ahaa madaxda qaarkood Ali ibn Abi Talib bay qaarkood wax ka sheegi jireen ilaa qaarkood furbadaha ay ku caayi jireen isagu halkii waxyaabaha la gelin jiray waxa uu
madaxdii goboladoo dhan gaadhsiiyey isaguna hirgeliyey in dadkii ka horreeyey loo duceeyo wadadoodiina lagu daydo lagu ammaano raggii ugu horreeye jideeye buu ka mid ahaa in lagu bedelo halkii cayda ina allaha ya'muru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurbaa wayanhaa cani alfaxshaa'i walmunkar aayaddaa suuratu naxli ku sugan iyo aayadaha lamid ah iyo wacdiga iyo xigmadaha lagu bedelo halkii cid wax laga sheegi lahaa cumar markaynu soo ururino waxaynu ka arkaynaa taariikhdiisa ilaa 10 sifo ayaa inooga muuqanaya inu maanta aada ugu baahannahay cadaaladda oo ah cid walba in xaqeeda la gaadhsiiyo iyo cilmiga qofku inuu aqoon yeesho acyaanta ummadda ka midi oo diintiisa badow aanu ka noqonine diintiisa waxa waajibka uu ku ilbaxo khawfkii alla ka cabsiga si ilaahayna addoomaha quluubtooda uu kugu hogaamiyo tawaaduca iyo kibir la-aanta qanaacadda qofka wixii ilaahay uu siiyey uu ku maarmo ilaa addoomihiisu ay ka caban jireen xaaskiisa mid addoomaha ka midi wuu la hadlayaa wuxuu leeyahay dee maalin walba cadda sunbaad inagu wadaa ma cadda siyo fuul baynu wadi karaynaa amiirulmuuminiinkaa cuna iska xejisabay waxaa isagoo bedela mooye lagaa bedeli maayo mas-uuliyadda iyo culayskeeda qofku inuu shucuuro uu dareemo oo ka qaban dhacyado markaasu ilaahay way caanaynaya xalaal miirashada iyo xoolaha ummadda in la iska ilaaliyo ku-xadgudubkooda xusnu lidaara wa tandiimu lwaqti walistifaadatu min dalik in maamulka la hagaajiyo waktigana laga faaidaysto xaqa in ciddiisa la gaadhsiiyo lagu yidhaahdo mid madax iyo mid raciyadaba iyo sunnada wanaagsan in la jideeyo 10kaa sifo ama 11 ayaa aynu ka qaadan karaynaa qisada iyada ah ee cumar raximahullah cumar ibnu cabdilcasiis markii ajashiisii ay timid qofba waxun buu ilaahay sabab uga dhigaa had iyo jeerna waa loo cadow qofka muuqdee ummadda ah ama lama quuraba had iyo jeer dad cadowga abaa markaa waxay usoo mareen shaqaalihiisii mid kamida bay sun ugu soo dhiibeen kadibna raashinku ugu daray taasaa sabab u noqotay inuu adduunyada ka tago cumar ibn cabdilcasiis raximahullah markii la yidhi ha lagu daweeyana iska daaya uri tani wakti bay leedahay weliba nin gaalada kamida baa wuxuu usoo diray cadaaladiisi iyo wanaagiisi iyo xidhiidhkii wanaagsanaa isagoo eegaya ayaa usoo diray nin dhakhtaraho wuxuu lahaa iska noqo tani wakti bay leedahay waan iska hunqaaci haddii ilaahay caafimaadinayo haddii kalena waan ka socon doonaaye sidaa daraaddeed baa waxa uu yeedhay addoonkii ama ninkii isaga ahaa shaqaalaha ahaa maxaa kugu kalifay buuri wallaahi way dageeno adduun intaa la eg bay siiyeen buuri adduunkana baanka ku shub buuri waa xaaraane adiguna baxsayay ku dilime iskaga carab raximahullah allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله